iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka waxa ka taagan oo xal waara loo leeyahay dagaal beeleedyo u dhaxeeya qabaa'il wada deegaanada dagaaladu ay ka socdaan deegaanada kala Xiraale iyo Burdheere oo ka kala tirsan gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe waxa toddobaad wax ka yar dagaal beeleed ugu geeriyooday wadarta guud labada dagaal in ka badan 60 qof halka dhaawac intaas uu ka badan yahay dagaaladan dhamaantood waa kuwa in muddo soo socday hase ahaatee ma jirto cid isku xilqaantay sidii xal waara loogu soo dabaali lahaa dadkaasi dagaalamaya hadii ay ahaa lahayd dawladda dhexe iyo maamulada hoos tagaanba marka laga tago baaqyada ay dirayaan madaxda wali ma jirto cid ku baxday dagaalada ka taagan deegaanada Burdheere iyo Xiraale ee maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug waxaana markasta suuragal ah in dagaaladu dib ay u qarxaan Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo waxa uu dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo cid kastoo mas'uul ka ah dadka dagaalamaya ku eedeynaya inay ka gaabiyeen sidii colaadaasi loo xalin lahaa waxaana uu xusay in dagaaladan aysan ahayn kuwa haatan bilowday oo hore looga warhayay daliil aad inaan uga soo jeediyo dawladda federaalka aan uga soo jeediyo arinta Xiraale 2017 way dhacday waxa ku dhintay dad badan oo maanta intuu ku dhimatay aad uga badan saddex beri ay oo xiriira dagaalkaasi socday naf iyo maalba waa lagu waayay waxay ahayd in yani nabadeyntii laga wada nabadeeyo waxa ayaan daraa walaalaha reer Cadaado 33 qof iska dileen in ay ayagu isku xilqaameen oo muddo 6 bilooda ay arintii ay soo wadeen wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanadii lagu dagaalamay ayaa sheegaya in wali ay taagan tahay xiisada sidee bay Soomaalidu markii uu dagaal dhaxmar isku xalin jireen maxaa xilligan isbedelay waxa sharaxaya Aban Xirto Dhuux dagaal beeleedyada ama wax kasto dhib ah oo dhacaba waxa lagu xalin jiray garta waxa loo kala saari jiray laba nooc oo la kala yiraahdo ugub iyo karinley waa wixii hore loo arkay oo waxa loo isticmaali jiray xeerkii looga dhaqmay in la xasuusto sidii oo kale inta la soo celiyo dib arrimahaas wixii lagu xalin jiray looga xaliyo ugubkuna waxa weeye mid cusub oo aan hore loo arkin oo markaas dhacday markaas guurti muxuu ahaa khiyaar loo bixiyaa iyagana go'aan ka gaaray sidaas baan lagu xalin jiray waxa la yiraahdaa waxaan la arkin hadii muxuu ahaa ay yimaadaan waxa lagu xaliyaa waxaan hore loo arag sidaas oo kale marka garta labadaas nooc loo kala qaadi jiray oo ah ugub iyo karinley waxa lagu xalin jiray wixii hore loogu xalin jiray muxuu ahaa amuurtaas oo kale markii hore u dhacday ugubkuna waxa weeye gar uguba loo sameyn jiray iyadana marka arintaas jawaabteeda sidaas iyo maartay si u dhaweeyo hatta guurka kamid ah in muxuu ahaa gabar godobtir la yiraahdo kale muxuu ahaa la siiyo dadka wax laga dilay laakiin nuxurka oo saldhiga garta ayaa waxa loo kala saarayaa ugubkaas iyo karinleydaas inta badan gobolada kala Galgaduud Shabeellaha Dhexe qaybo kamid ah gobolka Mudug iyo meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya waxa ka taagan dagaal beeleed dhiig badan oo ku daatay haddaba maxaa cawaaqib xumo oo ka dhalan kara dagaaladan ka socda Soomaaliya ee u dhaxeeya beelaha walaalaha waxa shantan qodob ku sharxaya Sheekh Cali Wajiis oo kamid ah culimada Soomaaliyeed shan khasaaro oo waaweyn oo mid walba ay shay xaraan tabcan diinta ku tahay dagaal beeleedka noocan ka dhalanayo inta koobaad horta waxa waaye qofka waxa ku dhacaysa diin la'aan nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam la yazaal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman qofku diintiisa yani waasicnimo ayuu ku haystaa oo macnaha diinta waasic ay u tahay ilaahay diin muslim ka daadanayo marka qofka diin la'aan ku dhacaysa ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay waman yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha inta labaad waa qadi'atu ruh baraado istashay oo sababtay ayaa soo doonaysa midda saddexaadna waxa waaye waa amni la'aan dad nool ayaa la dilaa ilmaan la doontoonaya islaamana laga dhigaa raamil taasna waa burbur wax ka soo baxay aysan jirin midda afraadna waxa waaye amni deegaanka iyo maamulka dawladnimada ayuu khatar ku yahay midda shanaadna waxa waaye meeshii muslim ku daato abaar iyo faqri iyo gaajo iyo cudurro ay ku sababaan